orod ku mara mid ka dhaca ayaynu nahay maanta waxaynu u baahannahay inaynan halka ku kala harin maanta dal iyo dibad meel aad joogtaanba dalkiini baa laydinku haystaa dadkiini baa laydinku haystaa dunyadiini baa laydinku haystaa maanta meel aad dib uga hadhaan ma taagnidin haddaad fadhidid ka haddaad taagan tahayna dhaqaaq ayaa laydinka rabaa maal iyo naf iyo mood waxba lama hadhayo diiga degdega baabuurta reer walba ha waco dadkiisii ninkii baabuur wata waynu halka isa soo taagaa hadaanu baatrool haysan anaga ugu shubayna insha Allah ta'ala gabdhaha yaryar ee magaalada dhex wareegaya waxaan leeyahay wad ku khasbantiin inaad timaadaan waa inaad soo baxdaan oo timaadaan oo dadka badbaadisaan oo shaqada dhinaciina ka qabataan haday tahay dhar la maydho sida Zainab tiri waxa la idinka baahan yahay shaqooyin caafimaadka kaliya looma baahna shaqooyin caafimaadka aan ka dhicin baa laga rabaa sida Zainab u sheegtay soo iska xaadiriya isbitaalada aan gudida caafimaadka dadka ka mas'uulka la xiriira shaqada xataa kaga aadna idinkoo isqoray idinka laftiina oo qorantihiin si nabadgelyadiina loo sugo haday wax dhacaan loo ogaado waxa rabaa halka inaad la soo xiriiraan insha Allah ta'ala waxaan ka codsanayaa dadka shicibka magaalada aan ka baxaynin fadlan marka dhaawac isbitaalada la keeno ha iimaanina isbitaalka ilaa iyo dadka loo shaqeeyo waxa weeyaan maanta dhibaato badan baan ugu sameeyeen waxa la idinka baahan yahay ilaa dadka la eego maanta dhaawacna laga manaxayo oo lama odhanay maxaa loo dhaawacmay waa waxa doonaysay 15 sano maxaa loo dhintayna ma taalo waxa loo baahan yahay ninka gacantayada soo gala ee dhaawaca ah ilaahay haduu naga kaxaysanayo isaga qoray laakiin inaanu silic nooga dhimanin anagoo idinka kala celinayna ha imanina cusbitaalada ilaa iyo dhaawaca uu kala dego oo shaqada dadka caafimaadku ay u qabtaan qabsada shaqadiina idinku oo keena biyaha oo dhaqa dharka oo nadiifiya cusbitaalada oo kariya cuntada oo ninkii dhaawaca cunto cuni karana wax siiya dadka shaqaalaha ay dadka muxuu u shaqeynayaan wax siiya dadin leeyahay maanta ninkii ka hadhaahaynta kuma jiro waxa loo baahan yahay xaq baad ku taagan tihiin cidna kama wadataan xusuus qof walba waxaad ku dhimanayso maanta dal iyo diban waxa idin leeyahay urdan waa ka xaraan maana dhigataana waa ka xaraan hakrashana waa ka xaraan maanta inaad tirtirantaan oo sida la idinku talagalay la idin tirtiro iyo inaad tiraahdaan maya damaca iyo dulmiga ay wadaan musabixi iyo wixii la halmaala ay wadaan maya inaad tiraahdaan oo gacmaha isqabsataan oo wada jir aynu kaga baxno ayaa loo baahan yahay waa inaad diyaar u noqotaan oo dhexda xidhataan rag iyo dumar meel aad joogtaanba qofkii maanta jidka siraada ifka ee dhulbahanta u jeexan ama harti u jeexan qofkii ka dhaca ee ayuunba dhintay kii ka dhaca ayaa dhintay kii gurguurad ku maraya kii orod ku maraya kii qunyar ku marayaba waynu kala baxaynaa هل هوشينو وهل عن لوكال حريم سبحان الله سبحانه وتعالى وحده ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وحين ما أنت كترنا إنه بدبادينو نفها دقالك إنه كترة وحين آدينو آد مهم إنه وأحسينو شكت ولا شيء إنه ولسعنو إن دقيقي حب لوجو بهني هاي وحرتين إن ضدك دقيقة صادر إن سكرين صحة أصلا ميان الله بيو أن نجر عن الهول الدنباء كجلين sidoo kale waxa loo aad loogu baahan yahay transportation-ka dhibaatada ugu badan ee haysata waxa weeye ambalaasyo badan waa noo yaalaan laakiin waxa muhiim noo ah oo aad noogu muhiima transportation-ka oo ah ambalaasyadu waxa laga yaabaa inay furinaha ka shaqeynayaan oo soo guriyaan dadka dhaawaca ah sidoo kale waxa loo baahan yahay dadka sii qaada bukaanada xaaladoodu stable tahay oo degan tahay waxaan u rabnaa kalabayd sidoo kale waxaan rabnaa kalabayd lafteeda in laga sii khafiifiyo oo laga sii qaado oo Woodward iyo Buuhoodle iyo meelihii si dhow in looga sii raro dhaawacyada wixii xaaladoodu ay degan tahay oo dhakhaatiir xagaas ay joogaan meelahaas Woodwardna dhakhtar baa jooga kalabaydna Buuhoodlena waxaa jooga dhakhtarkii dhakhaatiir badan baa jira oo shaqeynaya oo diyaar u ah inay la tacaalaan wixii bukaan loo gudbiyo marka sadarteed waxaan rabnaa in transportation-ku uu noqdo waaraad lagu qaado dadka xaaladoodu ay degan tahay oo loo qaado magaalooyinka kale oo ay ka mid tahay Buuhoodle iyo Woodward iyo meel kasta oo dhakhtar caafimaad uu joogo sidoo kale xilliyada dhaawacyadu ay badan yihiin dadka xaaladoodu ay culus tahay waxa loo baahan yahay in loo raro hadii loo sii qaado loo transfer gareynayo Garowe sidoo kale waxa loo baahan yahay tiimamka caafimaadka waliba aad dhowr jeerna waan hadlay dadka anesthesia-da aad baan ugu baahanahay culays badan baa arrinkan iga taagan dadka surgery-ga bahda caafimaadka aad baa loogu baahan yahay inay ka qayb qaataan oo ay joogaan
waxaa loo baahan yahay dad mar walba diyaar u ah inay ambalaasyada dadka xaaladooda criticalka ay tahay inay la socdaan oo ay raacaan oo loo gudbinayo markaa ama garowe ama meel kale waxaan rabnaa dad diyaar u ah shaqada waxaan leenahay hawl badan baa dadkii caafimaadka ama tiimamkii caafimaadka u furan raxmaan raxiim waan salaamayaa dhammaan dadka dadweynaha iga daawanaya halkan waxaan doonayaa anigu inaan 3 message ama 3 fariimood aan halkan ku gudbiyo alxamdulilah rabbil caalamiin halgankii baa socda waana guuleysanaysay soo sheegeen walaalaha hore waxaan ka rabaa inaan marka koobaad aan aad u adkeeyo inaan aad ugu baahanahay dhiigaga inaan aad ugu baahanahay waliba waxaan ka codsanayaa caawa dadka jooga magaalada shacabka magaalada jooga ee waliba ah dhiigaga maynisyada ah sida O maynis B maynis iyo A maynis inay iska xaadiriyaan hadda marka fariinteedu soo gaadho goobaha caafimaadka si dhiiga looga shubo degdeg baan dhiigadaas aan ugu baahanahay waxaan kaloo doonayaa inaan sii adkeeyo in loo baahan yahay aan waliba aad ugu baahanahay dhakhaatiir qaliin iyo maaragtay suuxiyayaal ama anesthesia xirfadlaha maaragtay anesthesiada la yiraahdo inaan aad iyadan ugu baahanahay meel kasta joogan ay ka soo dhaqaaqaan deegaanada maaragtay SSC ilaa iyo gobolada harti oo dhan ilaa Boosaaso Garowe Gaalkacyo inay soo dhaqaaqaan baan aad u codsananaa taas waa taas qodobkaas baan aad u sii adkeynaya waxaan kaloo rabaa inaan laba message kalena aan gudbiyo runtii shacabku magaalada aad bay ugu soo noqdeen waxaan ka codsanaynaa shacabka magaalada ku soo noqday inay magaalada iskaga baxaan wixii aan hawl qabanayni inay magaalada ka baxaan waayo magaalada duqeymaha ku socda waad ogtihiin maanta wixii ka dhacay dadka ugu faraha badan ee khasaaruhu gaadhay ma aha ciidamada xaqudirirka ah ee ku dagaalamaya furimaha dagaalka waa dadka shacabka ah ee magaalada dhexdeeda jooga ayaa maaragtay ku waxyeeloobaya duqeymaha fadlan waxaan ka codsanaynaa shacabka magaalada inay iskaga baxaan oo ay ku noqdaan deegaanada ay ka yimaadeen iyo meelihii ay u qaxeen inay si aan khasaaruhu u badanin qodobka labaad waxaan rabaa dumarka ayaan message-kan uu gaar ugu socdaa waxaa jira oo maaragtay aanu aad u arkaynin maanta haween